wiil 20 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwad kadib markii lagu eedeeyay in uu weeraray misna qaniinay gacanka hadalna ugu daray mid ka mid ah kormeerayaasha ama security-ka baara tikidhada basaska iyo tareemada dadka isticmaala. 20 jirkan ayaa la sheegay in uu feer la dhacay qofkii kontarolayay tikidhka in uu wato iyo in kale kadib markii ay security-ka soo koreen tareenka fudud ee lambar 3 ee uu saarnaa. waxa ayna markiiba baaritaanka tikidhada ka dhex bilaabeen tareenka dadweynihii saarnaa oo uu isagu ka mid ahaa. markii la soo gaaray isaga ayuu gacan ka hadal bilaabay, waxa uuna feer kaga dhuftay wejiga ninkii isaga kontarolayay si taalamida garabka ayuu qaniyo kaga dhajiyay. dhacdadan ayaa maxkamadda la soo hordhigay bisha Juun waxaana loo ballamiyay in dhageysiga dacwadda iyo go'aanka gaaristeedaba ay dhacdo 22 bisha Agoosto ee inagu soo fooleh. kiiskan ayayna maxkamadda magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway go'aan ka gaari doontaa. ninkan 20 jirka ah ayaa ku nool Bremen waxaana lagu soo oogay dacwad ah inuu ku xadgudbay qodobka 286 ee xeerka ciqaabta. qodobkan oo ah mid quseeyo dadka rabshadaha u nugul ee xirfadlayaasha ah, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha iyo kontaroolayaasha gaadiidka dadweynaha. waxaana la filayaa in bisha Agoosto 22-keeda kiiskiisa la soo afjaro, go'aankama dambeysana ay ka gaarto maxkamadda magaalada Oslo. halka ay wararka ugu darkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.